الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. aad bay farax gelinaysaa caawa inaan masjid Cumar bin Khattab qarno aan kala qayb galo jumhuurka iyo culimadaba barnaamijkan ay soo qaban qaadisay muassasatul minhaaj faraceeda qarno. Sheekh Cali aad buu mahadsan jazakallahu khayran soo dhaweynta sida uu sheegay raqaroodka annaga aad soo naqaan laakiin magacayga Maxamed Cabdiraxmaan ayaa la yiraahdaa. walow aan isleeyahay dad badan oo hadda meesha fadhiyay oo Sheekh Cali ugu horeeyay waxay ka soo aflaxeen iskuulkii aan qarra ka sameynay oo dagaalka badan raqaroodku ay aan kala kulannay furitaankiisa inta qof mundadaha ka soo baxay halka waxaan filayaa inay aad u badan yihiin saasoo maaha. marka maamulihii ugu horeeyay iskuulka mundadaha idin dhisay way anaga hor fadhiya aad uma taqaanin soo gal marka saawa inaad raqaroodku ay u ogaadaan iyadana inta haddaan kasoo gudubno caawa mawduuceenu ka hadlay ku saabsan yahay saamaynta technology-gu uu ku leeyahay nolosheena. technology-gu waa bini aadamka aanu ka maarmin lana bilowday ilaa casriga xajariga. Soomaaliga aad bay ugu liidataa xagga cilmiga iyo waxa la midka gabayada iyo qabaa'ilka iyo waxaas ku fiicanayn baadiyaha marka la joogay wala Soomaaliga aad u naqaan. marka technology-gu hadda wuxuu marayaa nolosheena runtii aad moodid inay ku dhisan tahay almost boqolkiiba maanta korontada hadday go'do nolosha ciriir bay gelaysaa soo maaha. telefoonada hadday istaagaan wax lama cuni karo waxna lama gadan karo saasoo maaha. ilaa xadkaas baynu nolosha ku tiirsannahay technology-ga waa inaan ka maarnay. social media marka wuxuu ka mid yahay technology-gaas ka mid ah waxyaalaha nolosheena maanta ay ku tiirsan tahay. laakiin waxaa daran waa balwadka inay noqoto heer la yiraahdo idmaan ama balwad ay noqoto oo qofka ay saameyn ku yeelato caafimaadkiisa maskaxeed ay saameyn ku yeelato noloshiisa fahamkiisa ay saameyn ku yeelato dhaqaalihiisa ay saameyn ku yeelato calaaqadii reerka iyo guriga iyo zawjiga ay saameyn ku yeelato qofku uu shaqaysan kari waayo يعني إلى قفك ونقطة disable العمل وكل نقطة social media إدمان يعني بلود أي نقطة قف كستوى إلى كمدة أنا وعن وهو الرئي قف كستوى إلى كمدة وحان هو بار إندها مركو خلقة هذا الصبح دي وهو الرئي أو قبتوى إنه تيكسلو موالك يعني ساهم إمسا قفات شكرين موالك مركو إلا خلقة هذا السلام عليكم الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني إنت الأورم إمسا قفة موبايلك قفتها يعني همينكينا وحا قدام بقفكو وكسر حضور يا وموبايلك إلى حد كاسين نرش أنه وحا كل هذا السلام الفاكت إني سيدا إني نقطه مركا قاركود وحا لغايا وددكو إني يقاتان إني تهي قفك والباور كيسة والباور وحا اللي هذا qofka caziimadiisa inay tahay iyo qofka iscontrolkiisa ilaa inteebu qofku uu awood uu naftiisa ku controlo uu leeyahay. laakiin waa wax runtii ay ka shaqeeyeen dad badan oo aqoonyahan oo scientistiyaal oo ka shaqeeyo bartay cilmiga la yiraahdo behavior science cilmiga ah qaabka dadku ay u tasarrufaan waa cilmi dhan weyn behavior science qaabka dadku ay u dhaqmaan u tasarrufaan qofka maxaa ku bixiya inuu action معين qaado maxaa ku bixiya inuu si gaar ah u fikiro maxaa ku bixiya inuu go'aan nooca gaaro waa cilmi dhan oo la barto weey. dadkaasi marka runtii ka shaqeeya combination multi billion yani lacagaha ku fadhiyaan social media combination aqligaaga gelimayaan qaarkood waxay gaarayaan trillion waa imisa zero way trillion oo dollar imisa zero مليون كوالف مليون كنا سجال تريليون كنا همسة لبيه تمن زيرو يعني وحياة لواء كبنا إنتاس كم تالكود اللي هاي
waxay haayar garaynayaan ama shaqaaleynayaan caalamka ragga ugu ismaartisan ugu aqoonta badan dhanka dadka sida saameyn loogu yeesho yacni iyagoo oo aan kula joogin bay gurigaagii adoo ku jira rabaan inay kantaroolaan qaabkaad u fakerayso iyo waxaad jeceshahay iyo waxaad xiran lahayd waxaad labisan tahay halkaa inay kaa kantaroolaan bay rabaan productiga nimankaasi ay lacagta ka samaynayaan waa adiga noloshaadi wey adiga noloshaadi dadku waxaa laga yaabaa inay dhahaan waa free yani cid hadda lacag laga qaado ma jirto markuu Facebook isticmaalayo soo ma yaa lacag ka bixiya Facebooka ila lacag kama bixiso TikTok lacag miyaa ka bixisaa lacag lagama bixiyo sababay ku noqdeen marka multi billion ama trillion lacagtooda soo ku gaaraysa xagee bay lacagtaa ka keenayaan sababtoo waxay ka tijaaraysanayaan waa adiga wey xogtaada sawirka adigu aad gelinaysid waxa adigu aad qoraysid soo maaragtay adiga maaragtay adaa badeecadii ah badeeca innaga ah ninka hadda jooga Silicon Valley jooga California multi billionka ah lacagta wuxuu ka samaynayaa gabadha qardho joogta ama wiilka qardho jooga ee gurigiisa ku jira waxa ugu qaalisan hantiya dabcan iimaanka iyo marka laga yimaado hantida aynu haysano waxa ugu qaalisan attention waxa weeyaan xuduurkaaga adiga maxaad ahmiyad siinaysaa baraarugaaga maxaad ahmiyad siinaysaa nimankan waxay rabaan inay haystaan adiga attentionkaaga inay haystaan bay rabaan oo maanta dhan aad bahalkaa beerka salaaxaysid oo salaada salaamu calaykum marka la yiraahdo imise qof baa ku bilaaba mobilka markuu maqlo message soo dhacay salaada inta lagu jiro message ku soo dhacaya soo maaha marka intaada qofka adkaartiiba aanu bilaabin intee qof baa ku bilaaba mobilka markiiba oo haddana 20 daqiiqo kadib qofku baraarugayaa inuu mobilka ku jiray haddii la weydiiyo 20 daqiiqo maxaad ku jirteen xataa ma garan karo soo ma garan marka runtii waa cilmi dhan oo qofka sida behaviorkiisa dad ba arintaas aad u daraaseeyo oo u waxeeyo waxaan markaa insha Allah taala isku dayi doonaa inaan ka hadalno idmaanka waxa weeyaan qofku balwad inay noqoto social media mechanism ahaan qaabkeedu u shaqeeya yani qofku markuu fahmo waxa kale sidoo u shaqeeyo kadib ugu yaraan hataa sii wadid waad ku waraarsantahay waad ogtahay waxa uu yahay yani shayga suurad kaamil ka haysata inaad waxa ogeyn waa shay kale laakiin markaad ogtahay qaabku u shaqeeyo hadaad sii wado ama aad ku sii dhiiran tahay at least waxaad ogtahay waxa qaabku u shaqeeyo iyo wuxuu yahay marka mechanismka iyo qaabku u shaqeeyo idmaankan sabab ku yimaada aka hadli doona insha Allah taala waxaan kaloo ka hadli doonaa dhalinyarada waliba aad laga yaabo inay si gaar ah ay ahmiyad ugu sii leedahay qofku hadduu ku noqdo social media hadduu ku noqdo mudmin yani hadduu addicted ku noqdo yani balwad ay u noqoto waa ma tahay balwad runtii anu hadda ma inkaraya xataa aniga inay balwadii tahay saameyn intee la-eg bay ku yeelataa qofka maskaxdiisa yani qofka dhaawac ma gaarsiisaa maskaxeed ogo markaan leena dhaawac maskaxeed anigoo kale hadda mushkila iguma hayso sababta already maskaxdeeda koritaankeedii waa dhammaaday waa hor dhammaaday maskaxda koritaankeedu laakiin ragga teenage-ka weli maskaxdoodu waa koraysaa khaasatan qaybta prefrontal cortex qaybtan hore ee fahamka iyo garaadka iyo go-aan qaadashada qaybta ilaa 20 iyo waa sii socotaa koritaankeedu weli ma dhammaan marka haddii wax laga bedelo khalkhal la geliyo qaabka maskaxda u koraysay dhaawac qofka soo gaaray aad weyn marka dhaawac ugu badan waxay ku keentaa dhalinyarada teenagerska dadka adolescent 12 13 15 ilaa 19 waa meesha dhaawac ugu badan ay gaarsiiso weyn dadka waaweyn oo 30 iyo wixii dhaafay yes damage bay ku leedahay damage-ka ugu weyn oo dhawa kale lagu leedahay waa inay xaasaska lagu dirto soo garan iyo markaad bank kaga mashquulsho sariirta adigoo saarabad mobilka ku mashquulaysaa markaasaa yani lagu kala haysanaya meesha lagula sheekaysan lahaa baa adigii mobil baad la sheekaysanaysaa markaasaa la aqoon xataa waxaad la sheekaysanaysaa haddana oo marka intaasoo kala shakiba xataa imaanaya soo maa
يعني إنك بركة مشكلة من دقيقة بيلا هاي وقلت وين يكون لا هاي وبعد كان ما كنترول كرتين ما أنت ودن باقفك وحكوفر من فيديو ناقص كقاول سروح يسافر مس شيطان باكل حريرة وحلا بالحلا إيش الله سراع هذا كنت جاي بدارك إسا مرة ما ركت أي نص ساعة أي كسورك سي من ما بتكون دي بيا ما بتكون دي بيا مركز دامج أخلاقيات دامج دينات دامج يعني آخر هذا تذكر لكن تذكر اللي يرضى معه دار يا دامج مسكحات يعني mental health دامج مسكحات قلب كسدحات وسجن إن شاء الله تعالى هذا وقته هلا نسليه هاي وحكت المانتد ومحين كسر ما يكره محين كسر ما يكره يعني واحد تلمان قاب كيف وشقيا يو مسكحة الحوس عامين كل ياي خاصة التينيج كا يوم محين كسر ما يكره محين كقبل كرنا يعني محا أوبشن يسا عن خيار هذا يسمى وحل عن سوليوشن والدك يدك مارك المسؤولين تا مدتك يجوا المصلحين تا محا لقد بون أما أي قبل كران تانا هدي إن شاء الله تعالى علماء وكل وتعلقون دونان أنت بدن وحي فضول حريرة iyo تعليق diiniga iyo sheekh daahir iyo wafdiga sheekh maxamed macallin iyo culimadii oo dhan waa inoo jooga iyaga marka u deyn doona wixii technical ah insha Allah taala xooga saaraya hadii la yiraahdo okay waa maxay marka idmaanka idmaan maxaa laga wadaa runtii yani waxa leeyahay waxa qofka wuxuu ku yahay addicted ama mudmin buu ku yahay waxaa laga wadaa qofka inuu sawixii iska deyn karo compulsive use qofku iska ma deyn karo waxa hadba isagiyo is ogeyn oo gacanta la aaday oo isticmaalay waxa qofkii isagoo hadii jeer maar hatta isagoo og mararka qaar kood inay saameyn ku leedahay hadii niman ogeyn ma jiro social media akhlaaqiyan dhaawac la gaarsiiyo qof aan ogeyn baa jira khaasatan Soomaalidu cid waxay daawato boqolkii 99 waa wax taban waa negative waxa aynu ku mashquulsanahay rag baa hadda ka hor madaxa kale waa naga duwan yihiin dadkana hadda loogu mutaabacada badan yahay social media waa inteena mujtamaca ugu liidato dad baa waxa leeyahay waxa daraasaysan Soomaalida iyo social media madaxa kale ogow dadkooda culimada aan culimada nooca ma noqdeen culimada science noqdeen mid diimeed ha noqdeen dadka celebrity-ga loo yaqaan oo caanka elite-ka baa ugu mutaabacada badan ugu mutaabacada dadka hada jeer loogu daawashada badan yahay laakiin Soomaalida dadka loogu mutaabacada badan yahay loogu daawashada badan yahay waa inta ugu liidata maama milyan iyo daba casar iyo kabtan ayuub iyo daahir cala sawi iyo maxaan ku rahdaa adiga iyo name yani dadka loogu maaragtay loogu mutaabaca badan yahay waa dadkeena yani aan aqli iyo cilmi mid aan ku kordhinay haba yaraatay dad baa la yiri Soomaalida daraasada social media waxay ku maqnaayeen ilaa bil meelaasay daraasaynayeen yaa loogu daawasho badan yahay maxay ka hadlaan dadkaasi yani daraasada la sameeyay aakhirka conclusion wuxuu noqday Soomaalidu waxay daawataa ama mutaabacaysaa dadkooda waalan conclusion ka Soomaalidu aslan Soomaalida boqolkiiba دراسات علمية وحيت المامين صدح ذي قف Soomaalida inuu maskaxaan xanuunsan ودراسات رسمية صدح ذي هل قف لأنه هو مجتمع runtii burburka waxayna dareensaneen burburku saameyntiisu ku leeyahay iyo dagaalka iyo xabada iyo maaragtay isdilka iyo dhiiga iyo maaragtay waxa soo dhamin dhaawac aan muuqan trauma dhaawac weyn aan muuqan askarka Mareykanka waa aragtay markii dagaal Ciraaq ay ka qayb galaan Afghanistan saddex meelood meel baa waxa la geeyay isbitaal la geeyay post war syndrome oo yani dhiiga iyo xabada dadka 30 sano ku dhex nool ka warrama yani 30 sano dadka dil iyo qax iyo dhaawac iyo ku dhex nool dhaawac inta la ag maskaxdooda gaaray waas leeyahay marka saddexdii qofba xanuunsan أنا قرأنا مساج كنت كنت يعني صدق قف وقف لكن هو جنرال ما راح يتين عافمات قفتها ست معاهم إن شاء الله تعالى لكن إن جنرال صدق قف باروت حمص مركا ذاتك وحال أقالي مركا وحال متابعينا ووقت يكون حنا أنت اللي إذا تم يكون حنا وقت ذاتك وعلم بيتعوض مركا هنا أنت قفكم إنه سقوا نيجاتيف كونسيكونس وليه هاي هدي ولي
maaragtay aad isticmaalayso ood arkayso inaadan iska celin karin sigaarka dadka cabaaya iyagoo inuu sababka uu dhaawacayo qurmuu yahay jaadka dadka cuna waad ogtihiin khamriga kuwa caba haddana wixii waa wada sababtoo in badan waxaa qofka riixaya markuu waxaan samaynayo maskaxdeenu ogow markuu social media qofku isticmaalayo waxyaalaha iyadoo neuro imaging yani isagoo runtii dad inta la siiyey loo dhiibo mobile la yidhi isticmaala mobilka social media baa waxaa la gelay scan maskaxda kuwa lagu scan garay MRI-ga maskaxda marka waxaa active noqonaysa qaybta maskaxda noqonaysa nashaadka yeelanaysaa exactly waa qaybta maskaxda nashaadkeeda marka drug ay dhigtay qofka drug isticmaala marka drug la siiyo qofka maaragtay daroogada isticmaala markuu helo daroogadiisa maskaxdiisu ama qof shaah aad u hayo marka shaah la siiyo ama sigaar qof hayo sigaar la siiyo maskaxdiisa qayb baa active noqonaysa waxay soo daysaa dheecaan la yidhaahdo dopamine waa nooc ka mid a dheecaanada oo qofka siiya relaxationka wuxuu siinayaa qofkii inuu enjoyment wixii uu ka helo keelitaan buu siinaya marka qofku markuu social media ku jiro maskaxda waxaa active noqota exactly isla qaybta markuu qofku daraaga isticmaalayo oo kale marka waxaa arkaysaa daroogadu saamaynta ay maskaxda ku leedahay mid la midaba maxaa ku leh social media marka dheecaamada maskaxda ay soo daynayso qayb bay runtii ay ka tahay idmaanka marka idmaanku run ahaantii waa inuusan qofku yahay compulsive use oo isagoo xataa weli og saamaynta taban waxa ku leeyahay inuu haddana waqti sii wado imise qof baa aaminsan shaashka hadda inta ku jirta run ahaantiina gacanta si dhaba loo taagaan rabaa imise qof baa si dhaba u aaminsan baraha bulshada isticmaalkooda khayrkooda iyo sharkooda inuu badan yahay gacanta taag wow يعني almost مساجك ودوا إيه بس قبل استعمال شبرها بالشغل قعنتها سنبه almost تمرك يعني هذيك إنه شكل سبلية هاي مركز هذا استعمال شو علامات اسم حيث definition كاسي إدمان كله شيء واحد شيء قالوا إنه نبات اللي هاي إنه هذا ولي استعمال معناه هذا وهنا تاي بلوت مدمن إدمان النجاوي good statistically dadka si clinical حوالي عافنا ذهان مرة واحد هير لجارو هذا gaming internet gaming game كلا عيار internet كسر رسمي أو official دول كوحي ودرين مرة قفكو إدمان كل نقطة إنه حنون بس كحال وحنو مسكها dad baa ku qalala oo waxay wadaan gameka 3 saacadood oo qofkii aan biyo cabayn oo uusan istaagayn oo maaragtay uusan meeshiisa ka dhaqaaqayn oo qofkii laga yaabo in laga qaado meeshii isagoo ama ku ruux baxay meesha sidoo game u ciyaaray maskaxdiisu waa maqanta qofku ma joogo maskaxdiisu waa maqanta ma joogo waa idmaan xanuunka marka wuxuu ka mid yahay xanuunada psychology-ga la ictiraafsan yahay internet gaming hadda social media aad baa hadda loogu qanacsan yahay inaanu ka liidan internet gamingkii inaanu ka liidan dadka marka hadda dhibaatada kala kulmay oo ama suicidal noqdo suicidal waxa weeyaan qofku inuu isdilo social media uu ku keenay nin maanta waxaa jiray hadda AI-ga ka mid ah problemkaas nin baa wuxuu weeraray maalin dhaxaas aqalka boqortooyada ingiriiska because of AI baa maanta dadku isu shukaaminayeen inuu dili karo inuu samayn karo yani technology-ga saamaynta uu leeyahay ilaa markii dambe uu damcay inuu boqorka ama boqoradii uu ku talagalay inuu dilo oo qasrigii tago waxaana qofkii nolol kale ku jira marka dhibaatada maskaxiyan ee gabdhaha mararka qaarkood dhibaatada ku keeno models waxay arkayaan qofku inuu filter waxa la yiraahdo filter ma isticmaashaan marka internet qof reality ma wax adigii madow baa wax laga dhigayaa adigoo maaragtay si kala weyn qofku marka waxa rabaa inuu qofkii oo kale
super bardhigo waxaa ku dhacay marka inuu isagu isnaco qofkii isagu inuu isnaco yiraahdo bini aadamku saas dadku weegay adoo saanad u egtahay wuxuu super bardhigayaana wax real amaana waa wax filter la mariyay oo maaragtay intaasoo AI lagu bedelo haddii la rabo marka wuxuu keenayaa qofku inuu isla hadlo mararka qaarkood inuu ku dhaco depression waxa weeyaan murugo ilaa xad qofku inuu isdilo oo kale statistically marka dadka adultska Mareykanka oo kale qaba idmaanku waa ilaa 33 milyan oo qof intaa waxay u dhigantaa 10 ilaa 14 boqolkiiba urtada yani 10 qof baa hal ugu yaraan baa waxay qabaan idmaanka adduunka worldwide globally waxaa qaba taqriiban 210 milyan oo qof ayaa lagu ilaa iminka yani clinically dadkaas inay xanuun sayin xanuun waxa ku dhacay idmaan social media waa ku dhacay oo ku keenaya dhaawac maskaxeed oo u baahan in la daweeyo psychiatry loo diro u baahan yani 210 milyan Soomaalida inagu mushkiladeenu daraasaad ma sameeyno meelaha aad uga liidano meelaha rawasaadka cilmiga ahi inay social study sameeyaan in soo qof baa la ildaran social media dad badan baa la ildaran saameyn inta laag buu ku yeeshay qofka fahamkiisa iyo garaadkiisa iyo waxbarashada iyo waxa la midka waa arrin kale waa in fact waynu sheegnay haday in addiction kan wuxuu calaaqo la leeyahay dhacaamada maskaxdeena soo deynayno brain science oo dopamine waxa weeyaan qofku waa dhacaan maskaxda soo deyso markuu qofku filanayo abaalmarin reward markuu filanayo marka laana qofkani markuu social media ku jiro hadba video baa ka hor imaanaya soo marsaba baa ka hor imaanaya yani wixii uu macaansanaya markuu macaansanayo maskaxda markay waxay soo deynaysaa exactly the same dhacaanka ay soo deynayso markuu qofku daraaga iyo sigaarka iyo jaadka iyo cunayo waxay la mid tahay marka idmaankan waxa keenaya slot machine waxa weeyaan khamaarka machine khamaara maaragtay oo baal riixale bottom riixale oo marka numbers bu soo saaraya iyo baalkan la yiraahdo hadda one expert lagu khamaari inta sabab one expert isticmaasha ma jiraan isticmaal one expert aad buu waayeed hadda looga hadli jiray loo isticmaalo dadka hadda wali ugu dantayar dadka waxa la ajaab ka tahay dadka ugu dayar askarta iyo dadka waxba helinba oo ama qadama dhirgaanka ayaa ugu badan oo isticmaala khamaarka hadda electronic dadkaas isticmaala sababta khamaarku qofka markasta ma siiyo wuxuu rabay saasoo ma gacantaanu helaya gacanta ku xiga heli mayo ta saddexaad heli mayo maxaa laga yaabaa inuu helo tanafaad inuu helo marka qofku inaanu markasta qofku inaanu wuxuu rabay uusan helin laakiin uu filan karo inuu heli karo yani baad waxay ka khatar badan tahay markuu markasta helayo keebaa khatar badan qofku inuu markasta uu helayo wixii iyo markuusan markasta helayn oo gacan saddexaad dhaaf uu helayo keebaa khatar badan baa isleedahay ya markuu waxaa khatar badan runtii waxaa khatar badan marka uu qofku uncertainty wax leeyahay uncertainty waxa weeye hubaal la'aanta sababtoo yani dadka hadda Skinner la yiraahdo oo psychologist oo runtii psychology-ga cilmiga behaviorism kuwa maadadan oo psychology kamida oo xataa learning-ka iyo tacallumka iyo aad baa runtii oo calaaqo u leeyahay dadka daraasiyay weeye wuxuu ninkaas sheegay in xayawaanka isagu wuxuu markiisa hore ka shaqayn jiray eeyaasha iyo xayawaanka marabida ibni aadamkuba waxay aad u shaqeeyaan oo u shaqeeyaan markii waxay rabaan aysan markasta helin waxay rabaan markaysan markasta helin laakiin ay u helayaan si aanay filan karin si aysan qiyaasi karin uncertainty
marka hubaal la'aantaas waxay ku bixinaysaa qofku wixii hal inta raadinay waarta qofka khamaarka ciyaara wuxuu leeyahay duu khasaaraya laakiin intii uu ku khasaaray in ka badan buu haddana dhiganaya hadduu $100 dhigtay uu khasaaro waxaa laga yaabaa gaarigiisa inuu dhigto haddana gurigiisa inuu dhigto mataqaan sababka waxaa ku bixinaya sababta wuxuu isleeyahay gacanta damaa waxay tahay gacantii aad heli lahayd khasaaradaadi waad ku kabaysaa buu isleeyahay khasaaradaada ku kabaysaa waxaad daraaf garaynayaana waa uncertainty-ga wixii waa la'aantaad keenaysaa waa daraasho runtii bini aadamka la daraasay inay qaabka u behave gareeyaan social media marka iyo khamaarka exactly waxaa loo dhisaan gareeyay si qofku uu ugu noqdo mudmin ugu noqdo yani maxaa loo dhisaan gareeyay dhisaan gareynta waxaa ka wadaa qaabka yani loo naqshadeeyey ama maaragtay loo dhisay waxaa loo dhisay inay dadku noqdaan mudmin ku noqdaan saa daraaddeed baa qofka waxaa loo sahlay hadda waxaa la mida slotka mashiinka markaa laadhuuga tuuray sidoo kale iyo waxaa la mida inaad salaaxidda aad salaaxayso markastoo aad mobaylka beerkiisa salaaxdo maxaa samaysmaya shaashad horlaa kuu soo baxaysa sooma ma dhammaanaysaa social media ma dhammaadaa يعني سام ما تبغى مرة استاجي ورنا يو خلاص ما استاجي ما شفتها مركز يا ما العكس وكان العكس هو شفتها كان هي سكريكا هاد بوا ولا يسا ما أنت هاد محكو صباحية سكرين ولا كو صباحية سما هاد قار واتعشى وعرفته لنغنيان قارنا وهذا فني مثلا فيديو كو صباحي خاصة أقوم سامين تبسكحله وحا أقدرا فيديوهاش الشورتيga يعني ريلسكا يكون شورتيga sababtoo ah qofka time badan kaga qaadan meeshay koola dheer dadku ma jecla oo markaba waa ku daalaya yani wuxuu saadaraadii waxa loo dhisan galay inuu wuxuu seconds video ka yahay hal daqiiqo 60 second markuu yahay qofku 60 second attention kaaga waxa aakhirka dhaawac gaaraya qofku ilaa inteebu awood u yeelan kara tarkiis تركيز متقن waxa laga wado aan qofku ilaa inteebu wax focus gareyn kara marka waxa akhriyayso waxa u baahan tahay ama shaqo qabanayso wixina tarkiisaad u baahan tahay oo waqti aad geliso oo dul taagnaatid shayna dul taagnaatid hadda dadka social media isticmaala qof buug akhrin kara ma jiro soo buug muxuu baahan yahay inaad dul taagnaatid sadar inaad akhriyo muxuu baahan yahay inaad dul taagnaatid buu rabaa حوار إن الله سميسد برهابوك حوار إن الله سميسد إن الأخذ between the lines بعض بعضها إن الفهمت argument يقفك وسوتش إن الفهمت كل شيء فرضيات كل شيء محيطها أسمت رسول محيط كل شيء وحاصل وقت مهيس لأن مسك هذا واحد أدب تكره شوية لقب سطي سكن سبحان إن أركتد كذب كجذبتد إذا ربنا ريم بعصوب حية وكجذب بيسا إذا شعشة بعصوب حية ولا داوله مسكحه waxa dareemaysaa raaxo hadana waa ku gudbaysaa mid kala soo baxay sidii marka khamaarka oo kale yani marka qaabka khamaarka u shaqeeyo qaab lamida ayaa loo dhisan gareeyay social media yaas way kala daran yihiin oo TikTok iyo Instagram iyo Snapchat iyo Facebook iyo LinkedIn iyo X iyo Somalia boqol nooc waay midba wuxuu leeyahay function gaar ah uu leeyahay dhalinyarada waa ku kala saameyn badan yihiin qaar baa laga yaabaa dad siyaasad iyo exco kale waxa u badan qaar baa laga yaabaa in dadka professionalka LinkedIn oo kale qaar ba maaragtay Telegramka Snap midba wuxuu leeyahay wuxuu focus gareynayaa attention ka sector dadka segment kamida qayb kamida bulshada ayuu midba maaragtay qaar baa gabdhuhu isticmaalaan jecel yihiin oo ay wiilasha aad u isticmaalaan qaar ba maaragtay saameyn gaar ah bay leeyihiin kala leeyihiin marka laakiin mid walba waxa loo dhisaan garay ku doonaba ha noqdee inuu u shaqeeyo meesha rabo fariintu waxa weeyaan mid kasta inuu u shaqeeyo dad waxa jira hadda Google Files waxa weeyaan hadda ka hor baa 2021ka rag u shaqeeyo Google yani design product design-ka hadda Tristan Harris wuxuu shaqeyn jiray Google design assistants marka waxay kashfiyeen oo li gareeyeen Hogan gabar la yiraahdo oo kale waxay tobankii waxay la wadaagtay journal Wall Street Journal
xogadhan oo ay ururiyeen Facebook ururiyay kambaniga ururshay wuxuu ka ururiyay dhaawaca uu geysto isticmaalka Facebook dhalinyarada waxa ayagu ay maaragtay ururiyaan oo facts maadaama daytada ay hayaan dhaawaca oo gaarsiiyay marka ma aysan dadka lama wadaagin ma aysan nashin sababta businesskooda waa ku dhisan qoftaas marka waxay samaysay waxay la wadaagtay journal la yiraahdo Wall Street Journal waxa loo dhigay Google Files soo ma garan marka ninkan hadda Tristan Harris oo kale wuxuu tilmaamay inuu isticmaalka Facebook iyo social media uu la mid yahay slot machine-ka waxa jira lever bir aad saa u riixayso oo numberada ay soconayaan hadba wax soo baxayaan kana wuxuu leeyahay pull to refresh inaad salaaxdid soo screen-ku maaragtay marka exactly isku qaab ayay u shaqeeyaan okay waxyaalaha marka qofka ku bixinaya inuu had iyo jeer sheegaraynayo salaada markuu assalaamu calaykum yiraahdaba markuu tooso markuu meel fadhiyo maxaa ku bixinaya waxaa ka mid ah wax la yiraahdo fear of missing out fear of FOMO waa waxa loo yaqaan fear of missing out maxaa la fear of missing out qofku waxa ku dhacaya xanuuna inuu rabo inuusan waxba aysan dhaafin ya wuxuu qofku ka cabsanayaa inaysan waxba dhaafin marka markasta muxuu raadinayaa maxaa cusub buu raadinayaa maantana marka wuxuu saa ugu jeedaa u salaxayaa wuxuu raadinayaa maxaa cusub haddaad weydiiso maxaad faa'iiday xog kuu korortayna waxaa laga yaabaa wuxuu kuu sheegay saacad buu ku jira Facebooka waxaad tiri maxaa ku xog kuu kordhay aqoon maxaa kuu korortay information maxaa kuu kordhay maxaa xoga oo aad haysaa yani kuma sheegi karo qof maca dalika urge waxaa qofkii fear of missing out ayaa waxyaalaha hadda runtii ay daraaseeyeen mental health trending oo kale caalamka daraasaadku waxay tusay 2000 taqriiban waxay social media goorma soo bilowday ilaa goorma soo bilowday isticmaalka social media ugu horeysay ya goorma ugu horeysay xilliyo soo caan baxay goorma ugu horeysay 2000 iyo imisa tobankii ilaa 12 koor aad u jirin xilliyadaas marka wadamo badan oo wastiga daraasaad waxay sameeyeen in soo ifbaxa social media daraasaad waxa jira marka qaar waxa la sameeyaa correlation waxa weeyaan shay markii phenomena isticmaalkiisu aad u bato nolosha kale aynu noolahay maxaa kordha ama hoos u dhaca يعني waxay baatay in laga soo sameeyo correlation ila inta calaaqo isla leeyahay isticmaalka social media phenomena soo baxay saameyn kala nolosha maxaa hoos u dhacay maxaa kordhay waxyaalaha marka la ogaaday waxa ka mid ah oo la shan qaaday ilaa 10 sano marka la daraasaynayay waxa la shan qaaday inay aad kor ugu kacday oo hore aan loo arki jirin dadka dhalinyarada ah adolescent waxa weeyaan dadka 12-13 jir ah inay ku dhacday xaalad oo depression waxa weeyaan dadka maaragtay inay isdilaan ay ku bixinayso noloshooda in ciriiri dareemaan murugo inay dareemaan anxiety self harm inay iyagu dhaawacaan dhaawac isu gaarsiiyaan numberka dhalinyarada ee dhaawac isdilaya isxaganaya ama dhaawac isgaarsiinaya ama midi isku dhufanaya ayaa aad kor u kacay qaarkood ilaa raydka inta isbitaalka u galaysa ayaa ka kacay halka marka correlation-kaas wuxuu muujinayaa waxa awal hadaan hore u jirin inta social media soo bixin waxa keenaya inay bato numberka dhalinyarada dhibaatada isgaarsiinaya ama isbitaal u galaya dhibaato maskaxeed inuu sabab u yahay yani sabab u noqon karo yani causal correlation yani inuu sabab u noqon karo isticmaalka social media مثلا Facebook files oo kale wadaan ka sheekeynay waxyaalaha muujiyay waxa kamid ah dadkii marka groups loo qaybiyay gabdhaha
saddexdii qofba mid ka mida teenage-ka saddexdiiba mid yani boqolkiiba 30 gabdhaha ka mida waxay dhaheen isticmaalka Instagram-ku maskaxdooda iyo dhaawac dhaawac gaarsiiyay saddexdii qofba mid ka mida maskaxda caafimaadkooda UK boqolkiiba gabdhaha teenagers-ka 13.5 ayuu saas oo kale waxay gaarsiiyay heer inay isdilaan ay gaarsiiyay Instagram isticmaalka Instagram Mareykanka oo kale gabdhaha boqolkiiba 17 wuxuu ku keenay wax la yiraahdo eating disorder inay cuntada qaabka isticmaalkii cuntada anagrasia qofka markuu cuntada dad baa cuntada ka go'a oo qalalaha oo waxay noqdaan lafa camal noqda yani boqolkiiba 17 number aad badan way yani waa 20 boqolkiiba يعني شميرات ومالوي تمامكي قف يعني لو ونبر از runtii u badan way wiilasha boqolkiiba 14 يعني iyagana waxay report gareeyeen negative social comparison marka waxay ku tusaysaa daraasad ka soo dhamay dhibaatada social ama maskaxeed ay khaasatan ku leedahay dhalinyarada ay ku leedahay Kentucky نيل قلنا يعني attorney general يعني حراليها جود كنتاكي واستاذ كم من أمريكا هو سووا complaint دعوة وكجود بيه إن المهد شيء صدق يطلع إلى سنة يطلع بقول كي مسجال يطلع لواتين يعني إلى استعمالان تيك توك midnight إلى 5 AM يعني لما يطلعوا كهذا إلى 5 يعني وحليلا أي أدو مشغولة قف المعاصر مركا هرده واسعي سوما صبح دي سكول أما دراسة سورة قال كما هاي روح برتقف كاس أما وصل لأنه من نايت مركا استعمال شيء لا شنت صبح إنه بقول كي بلاغات تذكر اللي يرد اللحية تمرة تدوي تما شرته يوم بقول كي بالشنية لغات بروح استعمال تيك توك من نايت إلى شنت يعني هو حلي يقفك هديه وسوتش أو صلاة الليل أما هذي من التقييم أما هذي من النصر واستحضار سيده صبح ذا كل سكول هذا مكان هذا إنك اللي يرى إنه إبن سقط بعض اللي يرى عام ساعات كفر إذا لمية طنوك ويحكد ما يستعمل السوشيال ميديا بليس يعني أنت إسلامي ما مستوى كم قصة قعدنا تكتم ما كنا عندنا استعماله لمية طنوك ويحكد يعني لمية طنوك ويحكد ما سوشيال ميديا إلى قفك إنه سريرتيسا وحكون قويسي وهو يهي إذا ما عرفته ما يلقى صورتك كاهيستا تكتب بكم مشغول سيه هي واحد لمي قفك أسمركا ورددي مسكح ذا أوروبا هنيدي لنساتنا واساقي داوع كلام مسكحي سيقاري وحبرشدي رواساقي إنك عاود سويت شيء سوحدي وحنبرن كرو سكول ما سويت شيء كرو يعني هدو شقاء هذه لا شقاء وحنبا قبسن كرو دباتنا رنتا إلا ذا صادر هذا عالم كوحي سميه global regulatory response يعني سال لو قفل عليا دوك استعمال السوشيال ميديا سال لو قفل ففي هنا دوان اخرسان اسبوعي لا سو دافay miyuu miskiin ku dhigay wadanka Ingiriiska oo kale wuxuu mamnuucay social media inaanu isticmaali karin qof 16 sano ka yar ofis 16 sano ma taqaanin waxa laga wado Ingiriiska waa sanadka ugu dambeeya secondary يا 11 لحيتهم بيتنا يعني قفكوا إلى السكندري كبحوا وحين ممنوعين إن السوشيال ميديا استعمالك يا أقوال هذا استعماله والد كبا أقوال لأن إلى لحية مجر والد قاعد تسوق شيء والد كبا أقوال أي حتى حرق إنه كوجلا يجنح كومنت سوشيال ميديا إلى لحية مجر استعمال أنا يا استعمال صومالي صدق تربى استعمالي ما بالك لو ديبي إسلام هو سيجي شيء سمع برجع أقول كرني يعني لا سوسات حقيقة ما تسمع مثلا هذا برجع كرني يعني ما كل بس تحكي كيش تحكي ما بالك لو ديبي صار يقول لي يوتيوب وقال لي مركزا حتى الأوجين أنا قولوا سوماليدو مليهن parental control دوكا قالوا حلو خيرا applications أنا إنه جلي كرن إلا وحي أديك ترى شيء ما بالك ولا هي هذا نفسي هذا مال أو parent control ومركي أدقشين بس الكلية بالك قبل حكرا
ilmuhu isticmaali karaa waxyaalo ilmaha loogu talagalay keliya application mobilka hadda ilmaha siinayso waa inuu jiraa application ku xiran oo control iyo muxuu geli karaa oo keliya laakiin hadda u dhiibso soo sidiisa wuxuu gelayaa wixii dadka waaweynaa ay daawanayaan buu gelaya wuxuu rabo waa ka soo horbaxay marka innagu marka malihin parent control waalidku controlkiisa danka malihin tarbiyada ilmuhu qiimo inuu male innaga waxaan u dhaqaanaa ilmaha inaynu dhalo aad baynu ugu faannaa tirada ilmaha qofku intee ilmaha buu dhalay waynu ku faannaa bal waxaa laga yaabaa hadday gabar 3 ilmood dhashay in lagu caabeeyo oo la yidhaahdo qoftaasi maxaa ku dhacay maaragtay 3 maxay tahay soo ma garan بينما عالمك كان 3 wax badan waay laba laakiin labada qof bay ku ruux baxayaan maxay sameeyaan labada qof bay ku ruux baxayaan imagine dadkaasi qofku markuu dhasho lacag baa meel loo dhigaa aniga hadda ilmaha ingiriiska ku dhashay aan dhaqanka yaabkiisa ku sheegay adduunka jooga kala duwan maalintii ilmuhu ii dhashay waxa ii soo dhacay check 500 pound ah oo la leeyahay lacagtaas waa start waa bilow dawladda ku siisay account ilmaha u fur adiguna waxa laga rabaa inaad bil kasta sanad walba lacag ugu dirtid si maalintu qaan gaaro oo jaamacadiisa hadhow soo dhowr 20 ku soo ku haysta oo loo qof isku filan gaswa maalinta uu 500 hatta account ma furin aniga soo gaar way ugu dibisay yaa iska taa inaan account u furo lacag ugu shubay yaa bayna umadaha kale yani qofku markuu dhasho waa account loo furayaa يعني سكول ولا دبت شوجا إلى مركي وسكول في العاده ليلة هذا السوق قال مرك إنه مركو وين هذا نقول له نقول هالسنة مركو هرانا دين كمله يعني راشين كي سواس إنه وحنقول رانا راشين كأد بنقول رانا لكن مسكح ديسا أخلاق ديسا تربية ديسا وحيلا إنه كتير القاموس كأنه كمتشو قانون كنا نقول صادر هذا بصومالي وحلا كواي بكمل روتر بام ملك الشيء وحلا صومالي كان كواي وحكمل ذا أخلاق أو كان كلمة مولانا في صومالي صومالي ولا هذا أخلاق دعوة سماها كلمة صومالي مولانا أخلاق هرشة واكاس مش شيء كرتا مش شيء كرتا تو واحد تبي ما أنا كلمة صومالي ما له هيك الأخلاق خلق عربي يا ما ما آداب ده عربي وذكر آداب تو أكيد وتخلق أنا سؤالي إيش يقول كل عربي تبغى واحد يقول سمين يسمو كلمة لا يقام برا أنا قلت له يقام ويقول له اللي في سام مكتر يا مركا حكوا هذا هذا values هي قيم وسؤال مولدي وليد سؤال مشروع قيم بالي يعني انت تروح كنت سنيسا الى انتهى انه بني ادم لماذا كتشوفنا بين تسنيسا يا انه بني ادم نقول مهم وما انه قرنو يعني ولنا وشي حيواني قاعد انه كجرا انه حيوان مخو كفكرا انه غورسدو انه وحدلو انه وحدلو كفكرا سوما انت تفكر حيوانكم لكن مسكحديسو انه كورت ادم ما فكروا ولي markay uma inaan gudbin stage ka ama mustawaha inaan maskaxdeena ka fakarno ilmaha inaan badino si aynu qabaa'il kale ugu dagaalano waa rabnaa taas waa rabnaa qofku 10 waa rabaa because waxa ku jira reer kalaad ka badanaysa ama haday kugu soo duulaan baad la dagaalamaysan waa noloshii xayawaaniga ahayd Soomaalikan baynu wali ku jiraa لكن كم شرنا إنه حتى إنه دراسين وروحنا سامين محلول ليه ولي آد ومشرنا وحبنا إن آد وليه يعني على قدر رتي ودبا كوستيا يعني وحيلها وخفك وخسارة وسوشيال ميديا استعمال الجارسيني وحكم ذا إحنا إلى هذا أريين ليه وستر وبحيان ليه هذا فبي وحويان الكلمات كلمة مسكوتة يعني ترموتي قاموسك وإنجليش فبي marka waa faul iyo snapping qofkii inaad qofkii kala dalishto dalashada waxa weeyaan inaad qofkii kula fadhiidhan ka gelin miis baa la wada fadhiyaa labadii qofba maxay ku jeedaan mobile baa ku jeeda nin baa kula soo fadhiisanaya haddana cudurkaa waa qabaa noocina cudurkaa qabo qof baa kula soo fadhiisanaya markiiba maxaa isku jeesanaya mobilkayga maanta dhan ku jeedaa
hadda qof baa ila fadhiyo inaan maaragtay attention siiyo oo la sheekaysto oo maaragtay marka kelmad bay leeyihiin haddana waa kelmad ma lihiin sababtoo ah waxaan ma danayna innaga ma danayna qofkaa marka runtii waxay noqday socialkii connectionkii dadka relationshipkii ayaa meesha iska daa labada qof oo isqababaa sariirta markay tagaan dhamo mobilkiisu ku jiraa yani waxaa laga yaabaa xataa inuu qofba qof kale la sheekaysanayo labada qof baa wada joogaan sariir bay wada saaran yihiin qofba qof kale inuu ku jiraa laga yaaba social media marka yani problemka iyo runtii dhibaatada uu leeyahay conflictigi waa aada u ziyaadi imise qof baa isku furay social media ma la daraasay ma la qiyaasi karaya intee qof baa isku furay social media يعني علماء laga yaabo inay arintaas ixtiraam ku sameyn karaan inta qof xaalad loo keenay dhexdhexaadin oo social media ka dhalatay ya marka waxa baad in waa dhibaatada calaaqada uu leeyahay waxaan adigana waxa ma yaraatee dhinac kale faa'iido ah oo noloshaada oo ku soo kordhinayo hawa yaraatee ma jirto dhanka kalena wuxuu gaarsiinaya reerkiisu ka burburiyo soo gaar qofka satisfaction-kiisa xataa iyo qanaacadiisa inuu maaragtay aad hoos ugu dhigo ولأتاه رنتي وحليه دنك إنترنت شيء relationship كأن attention كشغلنا حد مرة يسامينتا مسكح هذا أو cognitive effect جراشة قفك جراشة هو مركي ونوع إلى أول أنت ولا هذا تركيز إلى سامين كرت تركيز سامين كرت مركي أنا هذا ضعيفته وهذا ضعيف يا جراشة هذا ضعيف يسا إلى آخرين كرت ضعيف يسا إذا بران كرتا ضعيف يسا سوماك لأن مسكحنا هذا واحد لقب سنة وحيالها يرى كسكنة ريلس كان سكنة لقب سنة ما يعني بوق ما آخرين كرتين بوق ما آخرين كرتين سو بوق وادريه سيده بقوله بيتشوي وهو باهي صبر هو باهي فن هو باهي أديك أنا واحد براتين مسكحنا هذا سكنة واحد ما ركتي أي روح وقصينا سو مسكحنا marka runtii attentionka iyo damage fragmented mind maskaxdaadu wuxuu noqonayaa dhaawacan yarayn baa soo gaaraya haddii aan marka soo ururiyo maxaynu runtii qaban karnaa strategies ma jiraan qofku uu wuxuu yani waxaa hubaala inaynaan iska daynayn yani social media iyo technology-ga inuu sii horumaro technology-gu maahane intii hore hoos uga dhicinayo waxaa jira hadda wax leeyahay hologram waxa la maqashay hologram yaa maqal hologram kuleeyahay hologram gacanta taa qofka hologram maqal yes ma sha Allah hal qof masaajkooda good hologram hawiya qof meel kala jooga in soo iftiima laga soo ma sha Allah good haduu hadda waxa la marayaa qof Mareykan jooga in hortaada soo fariisto halkan miiska hortiisa waa qofkii oo iftiina oo suura maalma waxa ka qayb galay waxa ka qayb galay technology conference Dubai Chitex marka hologramka qofkii halkan hortaadu taagan yahay waa kan wada xajmigii iyo 3D suuradii waa kula sheekaysanay hadda mobile ka dhaxaragna Soomaa mobile ka dhaxaragna isagoo sidiisii oo fadhiya halkan waa koor fadhiyo technology waxa ka maraya heer qofkii aad ku soo hor fariisto soo fariisto ومعجزة مرة وحن عادة قفكي يوم ملك الجواب صور فريسانية وحليه هذا extend reality وشقا قف وحاول قبل إنسان بحلا سو ماذا نقدر على قشرة أو أدوك لكل حكيني ماذا نكسر يا وقفكي بعد شغلة قبل إنسان قف ملك الجواب إيدي بشيء قال وجودي ويا وقربا ولا إنسان وحلا ولا حرس دراسة وحبنا مكترة يا وحبنا الشغل وwaxa laga yaabaa laboratory inaga hadaynan haysan qofkii inuu lab shaqo ku qabto chemical studies ku dardaro ama uu machine dhiso isagoo qof meel kale la jooga inuu la dhiso yani aad bay dhanka waxbarashada uga yani wax badan ka saacidaysaa laakiin xumaana waa loo adeegsan karaa adigu gabadh baa kusoo war fariisanaysa iyadoo qaawan ya oo sideeda oo European oo cas oo maxuul cayma soo ma garan ya marka yani xumaantiina maaragtay dhinaceedu ka wata waxyaalaha marka runtii markaas wax ka wada waxaan inuu sii horumaro maahana technology-gu dib u noqon maayo saadaraaddeed waxay u baahan tahay preparation aan caadi ahayn in la galo seeba technology-ga duqyaanka ilaa xadkaa la eg noloshii bini aadamka ku samaynayo
سيلو كنترول كلام سيلو كنترول كلام وغير هذا أنت أنا هاي السوشيال ميديا مع يلقون بول أنا سلايه ويران كخفيفين كرا سامين تيسن مثلا لو حكم إذا وحلا سامين تيسن كخفيفين كرتين أو سيمبل كا notification كنا أسكحت so notification على الملا أنا notification ولا محي بس تقول دين إنه كوسا بعه هدي أظهرت notification كوحويان شرقنت فرينتو أيسول عايسو وصار ما حري كرو موبايل يعني إن أتقشّ فيسبوك أما إن واتساب قشّ كلي أما محاكو أركي كرتان مركا فريمين يكون صوت عين هذا أنا قاربا وحنا أركا بالكذب أو لا بلوت كذب تتفريمين صوت عين قاربا شنبلوت كذب أركا وور هني كاس فريمين يكون صوت عين شنبلوت كون كريزة كم تقالي محاك حرم notification إلى application كأفرم ما أركي كرو لكن مركي عاد انستغرام كي فيسبوك كي تيك توك كي واتساب كي نوتيفيكيشن كافورتو every second maxaa ku soo dhacaya بس كحلا مركب maxay sameynaysaa markiiba marba salaad ku jiro ma furtaa ya imsa qofna ku soo dhacay horta salaad ku jiro ma furtaa ya xaqiiqadii aniga waa ku soo dhacday baan idin sheegay weey yani waxalayna wax sugaysid baa laga yaabaa marka dindin markaa maqasho hadda ka hor baa wastiga waxaa jira wax sharci ama marka dadka la qaado qaxootiyaasha UN ku qaadaan dadka UN ku qaadaan baa waxa laga yaabaa qofkii fariin uu ka sooyaa UN ka in loo yeero leeyahay waxa ku soo baxday qaad baa ku soo baxday mobilkii marka masaajidka salaadii xataa musuuka marka fariin soo dhacday wuxuu madaa UN ka inay ka timi mooday marka si aan u miskarayn aan ma soo ma saarin waa inuu salaad dhexdeeda ku jagareeyo oo baash UN ka ma taarto sameeyo marka baash waxyaalaha markaa sameyn kartaan waxaa kamid ah inaad xirtaan maxay notification laga bilaabo marka ugu yaraan xira notification si inaad u qasado maahan aadan u arag fariimaha aadan u arag waa fahamteen soo yani qofka inaad u qasado kaliya baa fariimaha ku arki kartaa laakiin haddii uu ku furan yahay maanta oo dhan dhibidaasi waxaa ku khasbanaanaysaa inaad jeegariso waa mid kamid ah waxaa kamid ah applicationka inaad ka saarto home screen waxa weeyaan waa waajahada hore application waa ku jira mobilka laakiin icon-kan aad ku muuqda ka saar meesha maxaad u baahnaanaysaa markaa inaad raadisid bay u baahnaanaysaa soo inaad markaa qofkuna runtii triggerka waa cajab behaviorka waxbaa trigger garaya yani clues qofka waa waxaad la leeyahay sadu daraaci العلماء شرحتهم إن شاء الله تعالى محا سد ذراع يعني محا وحيلا قال كل يوم من عيسى أنا وحكله كل جالس سمع وده ما بس حرية وسد الذراع إن قاد البصر إيش هلا الله عليه يصير أنا كل جالسين وحكله كل جالسين ضرب هذا يلا فريسان بالي سمع إلى حق الله سي وحيلا صدق من مركب سد الذراع ساس سلمت يا وحلا الربا أبليكيشن كهم سكرين كسر dan inaad u qasado waxay u baahan tahay inaad raadiso search garaysid loo baahnaansha marka waa ka inta ka caajisayso maxay waa ka badan marmar baan subaxdii lugeeyaa marka dhar baan ku lugeeyaa dharkan ku lugeeyaa haddii inta la dhaqo aysan ii muuqan subaxdaa waxa laga inaan aadin lugti sababta dharkii baan ii muuqan dharkii ii muuqdaan laakiin dharkii marka ii muuqdaan aan xirin jiray waxay ugu bixinaysaa inaan ugu yaraan aan wallahi dharkii waa kana qaado xiro oo luge Soomaaliya waxaan ka wadaa yani qofkii waxba qofka ku bixinaya oo kicinaya Soomaaliya cuntada marka ku urto saluuladu iyo isku mid maaha markii ay cuntadu ay soo ku waray waxa la rabaa marka inaad screen-ka application-ka home screen-ka ka saar waxaa samaysataa time aad check garayso social media isxakame وحتى ساعدها إلى ساعدها و no social media time time وحسب يسا no matter what يعني واحد كستون دعاه time كان social media شقكم يعني وإنه ترى حلي ترى هذول حلي قاس ممنوع كان نفطي إذا كحرمي social media نشتغل تشاهدان تكذو مع السلام مثلا إلى برسو عليه قاري إيش أنتو كذي social media وخلاص حلقة سوشيال ميديا بتشوف يعني وانا سبيسيفيك تايم
ونفط هذا ساتشور إن الويندو يعني still إسكما هذا حرمين لكن